السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادة كنا كنجنير أحمد كمانتو ساعة وانك كسر أركتين ماتا حنبلاوي دونا فيديوهاي إني تحريه ويان لكن وحنبلاوي نماتا باسمه يقود إنجليني مركان رونا هانتي باسمه وان بلاوني ما شاء الله مال لحو مرايا يعني مركان فيديو قبضوبة يعني كهضية مال لحو في عمبو مرايا مركا إن ساوك سونتي مركا وحا وهرية سايت كلي وحلا يلاهو أو ماشا يعني اسمه كسر ayaa la diyaariyaa si uu dhismuhu uga bilowmo ayaa loo diyaariyaa soo markaa markaa anagu bilnasiib waxaan kula kulanay maadaama meesha kala dhismayaal ka socdeen yani mar baa la sii wada diyaariyay oo yani already waxay ahayd way diyaarsanayd markaa maadaama dee videogana min bilow ilaa dhammaan aan qaadayno yani waxaan maxaa ahaa waxaan siri yani maadaama ha ka boodsiinba marka xaggan baa si yar kooban ugu sharxi doona qaabka loo diyaariyo dhulka inta dhismaha la horin run ahaantii xaggan hoosta waxa ka arkaysiin animationkaas waxa cadeynaya dhulku marka dhulka la dhisayo saad u jeedin uu kala sareeya dhulku wuxuu leeyahay kala sareyn buu leeyahay marka dhismuhuna markuu la dhiso waa inuu sinaada yani maadaama in qalooc gurigu yeesho maaha marka waa la isku simaa marka waxa la sameeyaa marka ugu horeysa la yiraahdo cut and fill oo injineeradu ay garanayaan oo cut and fill macnaheedu tahay yani qaybtii dheerayd ayaa laga soo goynaya waxa lagu buuxinaya qaybtii gaabnayd si ay meesha isku soo gaadhaan si miisaanka kale oo dhulku uu u sinaado mararka qaar waxa dhacda in dhagax soo jeedin ay dhagaxaan jiraan dhagaxaantaas waa laga soo saaraa waxa la dhigtaa meel oo hadhow faa'iido ku noqonayaan sidoo kale waxa lagu isticmaali karaa gamcahana waa la isticmaali karaa mashiinadiina waa la isticmaali karaa sida cagaftii oo kalena waa la isticmaali karaa sida uga jeedin maxaa ahaa animationkeeda hoosteeda yaala hadda marka saas loo sameeyo sidoo kale waxaan ku dari lahaa yani muxuu ahaa maadaama waddankeena dhibaatooyin iyo waxaasi dee ka dhaceen oo dee meel kasta dagaalo muddo ay soo socdeen waxaa dhici karta in meesha ay ku jirto bomba ku jirto ama waxyaabo kale laga helo marka meesha aad dhismaha ka bilowbayso waa inaad reportkiisa haysid ama aad research ku samaysid meesha maxay ahaan jirtay ma saldhig bay ahaan jirtay ma xero military bay ahaan jirtay yani waa inaad kolley waad ogaan kartaa waa inaad research ku samaysid waayo wax kastaa kaaga soo bixi kara meesha ma ogtahay adoo shaqadii biloobay waxa naf baa lagu waayi karaa ay bamba ka qarxi kartaa wax bambooyinkii nooca dhulka lagu aasayay saasoo kale waa inaad reportka haysid meesha sidoo kale waxyaabo badan way jiraan challengeyo badan way jiraan insha allah waa wada arkaynaa insha allah waa wada galaynaa dhismihii marka qayb baan usoo waxaynana iminka insha allah waxaa seeskii qaybtii seeska ayaan soo dhigi doonaa insha allah isla socod wacan la wada eegno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادة مرة بعد إيو فيديوغي إن شاء الله أنكم بلوبيني سايت ما أنتوا ما أنتي كوباد وحنتيجي دونا إن شاء الله سايت كي يعني ماشي باسمه كالسعودية ينتيجي دونا إن شاء الله وأرور هوري واللحدي sidoo kale waxaan rajeynayay in hore inaan usoo sharxan maraya qaabka loo clean gareeyo site-ka meesha iyadoo diyaarsan baan tegay maanta waxaan ka bilaabi doonaa insha allah maadaama dhismihii maanta bilaabayno in alaabtii la keeno sidoo kale biyihii lasoo shubo ciidii la keeno waqtigana anagoo ka faa'iidaysanayna waxaan isniri maadaama dee maanta shaqo badan oolin waxaan bilowno muxuu ahaa bulaacadii oo ah in la qodo bulaacadii musqushii ama sa loo yaqaano kanifkii kole soomaaligu iska badan yahay in la bilowbo excavationkii qodisteedii in la bilowbo insha allah taasaan ka bilaabi doonaa sidoo kale hadda mar dhexdaasaan muxuu ahaa wacay cagaftuna imanaysa insha allah sidoo kale waxyaabo badan way jiraan challengeyo badan insha allah oo meesha kula kulmayno insha allah waxaasoo dhan waxaan rajeynayaa inaan muxuu ahaa si fiican oo
kale inuu record gareeyo insha Allah oo ka faa'iideysatiin dhalinyarada insha Allah waxaan rajeynayaa in maxaa videogan dad badan gaaro oo ay ka faa'iideystaan insha Allah ayaan rajeynayaa sidoo kale saddex video laba video hore ayaa ka horeeyay qaabka mashruuca loo qaato iyo sifada sharciga loo maro maxaa loo kala qaato labada qof oo kala qaataan insha Allah labadana u yaala linkooga insha Allah hadda xiisinaysa insha Allah wada daawan doontiin sidoo kale waxoogaha processka xiga wuxuu ahaa yani labada video xiga in yani check lagu qoro kadib aad lacagtii soo qaadatid oo de any bank lagu qoro aad soo qaadatid saa kulli isku waafaqdeen yani qofka aad u dhisaysid dhismaha sidoo kale bakhaarkii aad la heshiisid oo macmiil la noqotid cause management waa adeeg yahay ma ogtahay sidoo kale shaqaale waxaas oo dhan waxaan kusoo sharaxay videogii hore insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysatiin insha Allah asxaabi soo jeedin waxaa timiday cagaftii muddo kadib waxoogaha sidii hore inoogu soo sheegay maanta waxaan ka shaqeyn doonaa yani qodistii oo inaan qodno ah sidoo kale ka hor markii fiidiyoyadii hore waxaan kusoo sameynay cost estimationka waxaana inoo qornayd inaan suuliyada ka dhigno in hoos loo qodo 6 mitir sidoo kale labada ballarna loo qodo 3 iyo dhinac 1.5 ah waxaana isticmaali doonaa color excavation caadigii cagaftii caadigii Soomaali ahaan loo yaqaano sidoo kale run ahaantii meeshan maadaama ay tahay buur oo dhagax tahay run ahaantii madaxa sare hadda ka furnay uu noo qodi waayey marka waxaan ku xidhaynaa kii hydraulicii jabinayay dhagaxa jabinayay gunta kadibna ka kale ayaa muxuu ahaa lagaga soo guri doona insha Allah wixii ciida iyo dhagax sida u jeedin madaxa sare ayaa wuxuu jabiyaa dhagaxa isagoo lagu qodayo arkina run ahaantii markuu jabiyo ayuu dhagaxii burburo ayaa kadib laga soo saaraa dhagaxii haddaba asxaabay soo jeedin waa la istaaray cagaftii wiilka u fuulay marka insha Allah waxaanu dul tagi doonaa waayo meeshan mar dhexdaas waxa lagu soo rogay dhagaxdii iyo sidoo kale ciidii ayaan waxa la keenay so madaxii laga furay isna waa ka xaga yaala kii hydraulicna waa la geliyay insha Allah qaybtaas ayuu inta jeex ayuu ku qodi doonaa oo abrahan waana muhiim in yani markasta ka warhaysto yani in meel qaldan la qodo maaha saa hore nigu soo sheegnay in reportka la hayo yani meesha nooca ay tahay iyo qaabka loo qodayo waa laga maarmaan markaan cabirkii sameynayna ayaa waxa dhacday in uu waxoogaa dhowr mitir uu kasoo gaaray oo meeshii ciidda lagu shubay uu ka gaadhay dhowr mitir markaas u jeedin waqti qaadanaysa in qof la geliyo oo laga guro marka maadaama cagaftu ay afkeyga hore qaban kara intaas ay qaban kara ay iska riixaysaa ciidii si ay u bilowdo yani meeshii ay ku qodi lahayd run ahaantii waxay ka mid tahay challenge-yada soo yimaada marka muxuu ahaa site-ka waayo run ahaantii waan maqnaa markii ciidda la dhigay xaggii aan ugu talagalnay in la qodo iyo sidoo kale meeshii ciidda lagu shubay ayaa isla haatay waa challenge-yada ugu weyn ee markasta dhibaatada keenay in shaqadii haddana yani dib loo galo marka in laga sii taxdiro lasii calaamadayo kale ayaa qurux badan meesha uu kasii bilaamayo waa imika ciid iskaga soo riixaya intii ciid iska riixayay ayaa waxaa timiday sidoo kale booyadii baa timiday sidoo kale waxaan soo jaarsanay 2 taangi ayaan soo qaadanay si ay yani maadaama biyuhu xoog u dhamaadaan oo sidoo kale yani helistoodu iyo dalabkoogu adag yahay yani markay imanayaan yani adkaashaha waxaan ka wadaa maadaama yani biyaha la cabayo iyo biyaha dhismaha loo isticmaalayo kala duwan yihiin magaalo ahaan anagu uma isticmaalno biyaha la cabayo biyo gaara jiro oo muxuu ahaa booyadu garanayaan ay keenaan oo dhismaha loo isticmaalo oo aan yani cabitaan noqonayn so that's why ba yani inta badan yani waqtiga raaga inaad sii dalbatid baan qurux badan inaan iska badsatid ku fiican yahay waa hawl ku taalon adiga sidoo kale waxay naga iloobay yani xalay ayaa la keenay dhammaan niistii soo jeedin iyo alaabi kale u baahnayn oo bakhaar noo keenay sidoo kale marka qaabkaas oo kale waxa la waashmaan baa la sameystaa oo yani alaabta ku tiriya kuna ilaaliya aadan kala xisaabtantay isaga intuu bakhaarku keenay uu ka warhayo sidoo kale niistii iyo dhagaxaantii soo jeedin 2 ciidood baa meesha yaala mid waa tinis caadiga loo isticmaalayay sibir ahaanta
lagu daray. taa cadna waa tii lagu buuxinayay backfillinka hadhow marka la qodo ee la dhiso insha allah. iyada laftarkeega waan arki doonaa qaabka loogu buuxiyey, qaabka compactingka loo sameeyo waan arki doonaa. sidoo kale waxaa inii sheegay waxyaabaha loo baahan yahay majarafadihii iyo dhowr carrion oo kale u baahantay, baaldiyadii kale waad soo qaadanaysaa iyaga laftarkooga. yacni wax kastoo important oo muhiim ah yacni waa inaad kusoo xisaabtatid maadaama yacni shaqada ay kugu badan karto. asxaabi soo jeediin waxoogaha yar baa la qoday godkii. sidoo kale imika cagafti meel ay usoo marto ayay leedahay. waxoogaha haddana ciidii bay iska sii reexaysaa si ay yacni u timaado yacni haddana usii qodo muxuu ahaa godka. asxaabi soo jeediin wataa hawsheeda ayay wadataa cagaftu. sidoo kale marka loo calaamadeeyey iyada goosatay. sidoo kale waxyaabaha muxuu ahaa muhiimka ah ayaa ah in yacni aad iska ogaatid waqtiga ay ku shaqeyso iyo qaabka ay u shaqeyso. laba qaab baa loogula heshiin karaa. qaab waxa weeyaan in aad kula heshiisid yacni mitir square ahaan intuu kuu qodoo kale, ama sidoo kale inaad saacad ahaan kula heshiiso oo tiraahdo yacni saacadaas oo kale ayuu muxuu ahaa imsadii ugu qodaysaa. asxaabi soo jeediin hawshu way socotaa. qodista yacni waa qaab caadi unbaa loo qodaa. run ahaantii wayna ka fududahay yacni intaad shaqaale badan gelin lahayd adoo cagafta geliya ayaa muxuu ahaa dhaama. sidoo kale dhalinyarada waxaa ula talin lahaa yacni in ay bartaan yacni maxaa fudud iyo kolba qodobku ka fiican yahay in la isticmaalo. sidoo kale ani laftarkeyga waa isku dayay yacni cagafta in aan wado oo aan isku dayo qaabkay u shaqeyso. waxoogaha way yar dhib badan tahay, laakiin dhalinyarta insha allah waxaan leeyahay yacni site markaad joogtid wax kaste hala barto insha allah. waa jaanis weyn oo run ahaantii yacni waxyaabo badan oo aanan jaamacadda kusoo dhigin ayaa muxuu ahaa muhiim ah in yacni xagga iyadoo practical ah la arko oo dee yacni gacantii markaad ku qabanaysid iyo marka qof kuu sheego ismale. asxaabe maanta shaqadaynu intaasay ahayd. kadib markuu muxuu ahaa ay cagaftu dhamaysteen run ahaantii waxaan gelinay dhowr shaqaala si ay uga soo guraan waxyaabihii ku hadhay. maanta intaasaan ku joojin doonaa insha allah. shaqadaydu intaan bay ahayd, laakiin beritoole ayaan insha allah saaskii wada jeexi doonaa iyo sidoo kale hawsha caadiga wada galaynaa. asxaabi waxaan rajeynaya insha allah inaad videoga ka bogateen. insha allah wuxuu noqon doonaa videogeeni ugu horreeyay siteka tagnay buu ahaa. laakiin run ahaantii insha allah video kalena uu ku xigi doonaa. marka waxoogaa haddaad isleedihiin yacni waxbaa ka dhiman ama commentiga nala wadaagi kartiin insha allah. insha allah waxaan rajeynaya inaad ka faa'iidaysateen. haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir sidoo kalena insha allah dhalinyarta kale oo u baahan khibradda u share garay insha allah. wixii commentiga aad isleedihiin videoga dambe in laga bedelana nala share garay insha allah. aad baad mahadsantihiin.